وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. walaalyaal ilaahay mahad iska leh inta kooban insha Allah ta'ala noogu dhiman salaada cishaayi waxaan isxasuusin doonaa mowduuc muhiim ah dadka muslimiinta ilaahay subhanahu wa ta'ala muslimka ka dhigayna waxay xaq isku leeyihiin inay mar walba isxasuusiyaan oo ay isxasuusinta iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala soo hadal qaado in la joogteeyo ay muslimiintu xaq isku leeyihiin. ilaahay wuxuu leeyahay dadka xasuusi oo mar walba ilaahay xasuusi dadka xuska ilaahay dadka la xasuusiya wuxuu anfacaa oo wax ka taraya dadka muslimiinta ee muuminiinta ayuu wax ka tarayaa. walaalayaal waxaan ogsoonahay ilaahay subhanahu wa ta'ala maalintuu ina abuuray Xaawo iyo Aadam abuuray Xaawona ka daba keenay waxa dhacay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunkana uu qoray in xaq iyo baadilku ay tartan adag iyo loolan adag ay galaan. waxaan wax iska eegi doonaa mowduuc muhiimadiisu leh waajibna ay tahay inaynu isxasuusino sunnana maaha wax fiicanna maaha oo iska caadiyana maaha waa waajib inaan isxasuusino mowduucaas. markaan eegay waqtiga la joogo culayska uu leeyahay iyo dhibkiisa oo jooga loona baahan yahay dadkeena cuqaasha ilaahay subhanahu wa ta'ala aqliga siiyay qof muuminka oo qof aqli leh aw siiyay isxasuusino. walaalyaal ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta ina abuuray wuxuu noo kala qaybiyay qaarna ilaahay wuxuu qadaray dad inay muuminiin noqdaan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala rumeeyaan qaarkoodna inay gaala noqdaan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmadiisa iyo galladiisa iyo caafimaadkii iyo risqii iyo caruurtiisii inay diidaan oo ay rumeyn waayaan qaarkoodna saas ayaa qadarku ugu qoray saasayna ahaayeen. haddaba walaalayaal dadkii gaalada noqday ilaahay subhanahu wa ta'ala أو نوع عدي قال لماذا وحي بحنايا دلال حد كبحة وآدي أدو فربضان دلال لاسي وحي كوة جهني ميلا فربضان أو ضدك مسلمين تدحودا ماشي وين ما أنت قال لنا عصري جوكتا أي أود وين صارين وحويان قيس كمسلم كا إله سبحانه وتعالى وحنا قدر قيس كل دوان وحنا قدر ضد قيس كصا أبو رما قيس كي ماده أي الله سبحانه وتعالى نقدر dhibku ugu badnaa iyo culeysku ugu badnaa gaalada hadaba walaalayaal waxay saareen oo ay culeys saareen qoyska muslimka. hadaba waxaynu ka sheekeyn doonaa duulaanka reer galbeedku ay ku qaadeen iyo culeyska ay saareen qoyska muslimka iyagoo yiri sideeda noqda. duulaankaasan caawa iska soo hadal qaadi doonaa ciwaankaasi muxaadarada ayaan inta saada ka dhiman isxasuusin doonaa. walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala mowduucan waxaynu u dooranay oo in doonayna uga hadlayno oo inagu ogsoonahay qoyska muslimkii maanta waxa ugu weyn ee uu wajahaya waa qaswigaas iyo duulaanka ay ka soo qaadeen. waa duulaan culus oodihiisa wata lacagtiisa leh awood iyo lagu bixiyay miisaaniyad lagu bixiyay weeyaan. marka inuu qodobka ogsoon waa sababta koobaad ee nagu kaliftay duulaankaas oo jira awgeed inaynu qoyskeeni war maxay noo danayso weydiino badaan muslim nahay maxay noo dana dad jira oo muslimiin ay nahay. sababta labaad ee mowduuca ay u soo qaadeen waxa weeyaan in qoyska muslimku yahay tiir adag iyo xisni adag iyo dhufays adag oo laga maarmaan tahay inuu jiro. haddii qoyska muslimka laga farxasho oo meesha ka baxana waxaan ogsoonahay in islaamkii laga farxashay maantana waa dhufayska u dambeeyay noo haray hadday muslimiin tahay muslimiin nahay qoyska muslimkii waa dhufayska u dambeeyay noo haray maanta wax maanta inoo taagan oo magaci islaamka ku socda oo magaci islaamka lagu qabto oo xeelaha inoo haray ka mid yahay walaaliyaal. waa ciwaankaas sababtaasna waa sabab weyn oo inagu kaliftay inaynu ilaashano. soo kale walaalayaal qoysku wuxuu ilaaliyaa saan ogsoonahay caqiidadii muslimka oo weeyaano ilaahay subhanahu wa ta'ala ina amray inaynu qoys samayno inaynu isguursano inaynu xaas samayno inaynu caruur dhalno. waa caqiidu ka turjumaya qoyska wax iska nolol fiican oo la isku yimaado kalima qoysku caqiidu ka turjumaya caqiido dhamaystiran oo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa iyo kitaabkiisa ku sheegay ayuu ka turjumaya. qoysku soo kale walaalayaal wuxuu ka turjumaya akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee muslimku uu leeyahay ayuu ka turjumaya. soo kale qoysku wuxuu ka turjumaya in muxuu ahaa jiilasha soo socda ay yihiin meesha ay ka soo baxayeen jiilka soo socda
بري أمضن Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka aynu kaga tagi doono dhulka maanta aynu joogno miskiidka aynu joogno awoodda aynu leeyahay u dhiibi doonaa waa jiilka waa guriga ay ka soo baxayaan weeyaan meesha maanta awoodda iyo culays kala saari weeyaan walaalayaal waxa intaas inagoo ogsoon waxaynu dooranay mawduucaas inaynu ka hadalno walaalayaal xaq iyo baadilka saan soo sheegnay waxay bilaabeen mar hore soo bilaabeen yani xataa waxay soo bilaabeen nabi aadam calayhi salaam waqtigiisa nabi aadam waxaad garanaysaan in uu shaydaanku u sheekeeyay ku yiri ma doonaysa inaad waarto walu fiirso nabi aadan calayhi salaam jannu ku jiray wax dhibaato ka maqnaa ma jirin shaydaanku wuu fikray sidoo nabi aadan u waswaasin lahaa hadduu yiraahdo geed waxaan ku siinayaa aad jannada kaga baxdo nabi aadan ma aqbaleen oo uu diidi lah laakiin shaydaanku wuxuu ku yiri geed aad ku waarto oo haddaad saw qaniinto sida inagu maanta aan jaadka u aaminsanahay qof hadduu qaniina uu arkay inuu maasha Allah shaqaysanayo oo meel marayo uu arkayo ayuu waxa loo yaqaan nabi aadan geedkii u qaniinay soo shaydaanku uu ku waswaasinayo oo waswaaska shaydaanku ku riday sidii buu jannada uga soo baxay duulaankii u horeeyay qoys lagu qaado qoys muslima oo meel degan qoyskii duulaankii u horeeyay lagu bilaabaa nabi aadan ka soo bilowday jannaduna kala soo dhex bilowday wax sahlan ma yani waqtigaas duulaanka qoyska lagu qaado oo qoys muslim la baabiyo la kala kaxeeyana waqtigaas uu bilaabmay haddaba ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dadka hadduu ilaahay subhanahu wa ta'ala difaacin oo ilaahay subhanahu wa ta'ala garab istaagin oo ilaahay xisni iyo tiir u noqonin dadku guryaha iyo masaajida iyo soomacada dhamaanta wala baabilah waxay noqon lahayn meel burbura oo baaba ay noqon lahayn haddaba arinku soo saasa oo qoysaskii iyo muxuu ahaa waxa loo yaqaan adduunku fasaad ka buuxo waxa yimiday oo soo xaadiray oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qadaray inuu yimaado nabigeena sallallahu alayhi wasallam waqtiga nabigu yimid wuxuu waqti aad u daran jawigiisu aad u daran yahay ayuu yimiday heer qoyska waqtiga jira gabadha u dhalata nolosha lagu xabaanoolin jiray waad sawran kartaa qoys gabadha yar u dhalatay intay subax qaadaan hatta hadii la dilo yar roonaan lahayd qof baqtiyo la yar qaado waska caad laakiin gabadha yar nool oo indhaheego shana ku soo yeegas inta la qaado lagu ridi jiray muxuu ahaa godka lagu ridi jiray yani qoys noocaasa xaalad sidaa u fool xun buu nabiga sallallahu alayhi wasallam yimiday yani wuxuuna gaarsiiyay heer muxuu ahaa qoysku aan ka sheekeen doono iyo nolosha quruxda maanta la haysano ayuu gaarsiiyay daciifnimadaasi qoyska waqtiga jirina dhibaatooyin fara badan ayay keentayo in muxuu ahaa qoysaskii ixtiraamkii iyo kala dambeyntii noloshuna haday ixtiraam iyo kala dambeyn iyo isqadarin weydo wax noqonaysaa nolol liidata oo muxuu ahaa aan kala dambeynin ayuu noqonayaa walaalayaal haddaba waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam yimiday dadku waxay haayeen waqti saan sheegnay dhibaatada culayskaas uu jiro nabiga uu ku dadaalay dadka inuu isjeclaysiyo uu ku dadaalay dadka inay isjeclaadaan walaala ay noqdaan laakiin ilaahay baa subhanahu wa ta'ala waafajiyay ilaahay baa u fududeeyay ilaahay wuxuu leeyahay nabi allah adduunka waxa yaala hadaad lacag bixin lahayd dahab lacag waxaad haysato hadaad bixin lahayd oo u tuuli lahayd dadka isma jeclaysiisan saxaabada isma jeclaysiisan illa waxaad ogsoontiin saxaabadu wuxuu yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam iyagoo la isku duulo geela la kala qaado arabta meelaha iska eegnay weeyaan geela la kala qaado habeenba magaalo lagu duulo magaalada Madiina si gaar iyadu waxay ahaydba laba qabiilo waaweyn oo deganaa ayaa mar walba isleen jiray banaanka la isku bixi jiray sidii waxa yani waxa la isku dili jiray yani la dabar goynayo dabar goyn sil u eg ayaa la isku dili jiray ilaa marka qaarkood la waayaba rag waaweyn oo arrimiya oo caruurtii dumarku isku soo hari jireen heerkaas yani noocaas ayuu ilaahay muxuu ahaa isjeclaysiiyay saxaabadii heer waxay gaareen markay reer Quraysheed oo nabiga iyo asxaabtiisa ay soo qaxeen ay guryaha isdajiyeen oo muxuu ahaa qaarkood xaasaska isku furi gaareen yani say muxuu ahaa kalgacal iyo naxariis isku qabaan awgeed ay heerkaas nabiga sallallahu alayhi wasallam oo gaarsiiyay ilaahay bana ku galadaysto wuxuu nabi allah annaga dadka isjeclaysiinay adigu sababtum baad leedahay hadu annaga dadka isjeclaysiinay adduunka waxa yaala hadaad bixin lahayd ما تجعليسين يعني ذكر مسلمين تا اسمه تجعليسين هذا بقول رجال سيدا سمركي لهي نبي يوسف صاري مسلمين تيستعلادين ما حد عيطلب واحد عي يعني يعني الأدون كوا دعوه يقع شيء بسنة وأود ضبطنا أي داعي صحابة وحي قادين رسالة النبي يمسك كي النبي صلى الله عليه وسلم بيقادين وحينا قارسيين عالم كمال كسكت بردين مال كستو عالم كا ما أنت هذا أركتو يوروب محوها وحلا يقانا آسيا nin saxaabiga ku as
yurub nin saxaabiya ku aasan aasiya nin saxaabiya ku aasan afrikadeena maanta aan joogno saxaabaa ku aasan u yimiday dacwo iyo jihaad u yimiday yani waxa arkaysa saxaabadii markii sidaa loo dhisay nabigeena sallallahu alayhi wasallam tarbiyadaasi iyo u diyaariyay duulaanka lagu soo qaadi doono nabigeena sallallahu alayhi wasallam siyooga u diyaariyay inay saxaabadii noqdeen dad cajiib oo adduunkii risaaladii nabigeena sallallahu alayhi wasallam gaarsiiyay weeyaan heer waxay gaareen saxaabadu waqti yar oo kooban oo aan 30 sano ahayn cajiibka oo fiirsada waqti aan 30 sano ahayn oo aad u kooban inay saxaabadu kaga takhaluseen ay baabiyeen laba dawladood oo waaweyn oo adduunka marka kala qaybsan jiray kala sooran jiray laga daba hadli jirin adduunka maamulan jiray xoog iyo cadaadis ku hayay inay kaga takhalusaan saxaabadu gaareen waa 30 sano waxaan ahayn in labada imbaaratoriyo iyo labada dawladood waaweyn ay baabiyeen waxay kala hayeen saad garanaysaan dawladii Roomaanka iyo iyo Roomka iyo dawladii Faris looran jiray labada dawladood muslimiintu 30 sano wax ka yar bay ku baabiyeen badankooda kaga takhaluseen labada dawladood adduunka kala maamulanaya awoodooda haysteen lagama daba hadli jirin sida maanta dawladaha caalamka yihiin oo kale qaarkood ay u booteeyaan u dinaahiyayaan ay u dinaahiyeen jireen lagama daba hadli jirin waxay ku dhacawaad garanaysaa Ciraaq baa laga bilaabay sidii loo galay labada dawladood waaweynaa waad garanaysaa maxaa saa u baabiyay waa jiilka nabigeena sallallahu alayhi wasallam u diyaariyay duulaanka ay gaaladu soo qaadayaan og yahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam diinta ilaahayna si og yahay u diyaari weeyaan labadaas ka takhaluseen sidaa markay dhacday muslimiinta awood yeesheen nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu kaga tagay saxaabadii ay sidaa u maamuleen dawlado iyo khilaafooyin iyo waxa loo yaqaan ay kala noqdeen imbaaratoriyad waaweyn oo muslimiin ay noqdeen heerkaas waxa lagu jiraba haddana shay kasto meel gaara oo garaafkiisu kor u kaca sunnada ilaahay waxa ay hoos u dhacaan waad garanaysaa qofku da'diisu way kordhaysaa uu meel buu gaaraya awoodiisa iyo xooggiisa fiicnaanaya haddana markuu garaafkaagu meel gaaro da'daadu meel gaadho hoos badan qofku soo dhacay ilaa ilaahay uu yiri ardal al-umr ba qof kala keenay meesha qof ugu liita umrigiisa ilmanimad qof dib ugu noqonaya haduu da'diisa si gaadho si raagto ilma oo yani si ilmaha uu xarka dib u qasanaya qof hadaba heerka muqastaanku gaaray uu cirka maray adduunka in fara badan ama badankiisa islaamku maamulay ayaa muslimiintu way isdhigteen daba xaqaa socda walkaas muslimiintu way isdhigteen waxay idinka ugu fiican caalamka leeyin kama daba hadlo idinka awood leh muslimiintu way isdhigteen laakiin gaaladu duulaankoogi iyo awoodoodii ismay dhiganin bal fiirso sharka awoodiisa hadda iyo shar bay hayaan khayr ma hayaan ajar ma helayaan haddana habeenii maalin way soo jeedaan ururay sameeyeen waxa loo yaqaan 1924 waxay dadaalaanba ay kaga takhalusan dawladda Uthmaani u xub siibtay dawlad Almaaniya oo aan diin lahayn waxa cajiiba dawladda Uthmaaniyiinta yani ilaahay waqtiga uu keenay oo waqti cajiib ahayd culimadu waxay yiraahdeen dawladda Cabbaasiyiinta ninkii u dambeeyay Ciraaq joogay markii Tataarku dilayeen wali si farxun buu dilay yani qof markuu dhigto muslimiinta difaaci waayo ilaahayna aad si xun baad u baqti u dhimanaysaa oo baqtiyaysa wuxuu sameeyay ninkaasi war muuminiinta difaac oo garab istaag oo Tataarkii iyo Mongoliyaanka bay noo yimiday magaaladiisu iska fadhiyay halkiisaas uu iska adkaarsanay Tataarkii baa magaaladii Ciraaq ugu soo galay waad garanaysan qasadaay magaalada Ciraaq buu soo galeen milyan qof wax ku dhow walo fiirsada milyan qof bay ka takhaluseen dhagtay dhiiga dareen Ciraaq ma sawran karna caalamka waqtiga noocay ahayd magaalada ugu waxa ahayd weyn caalamka waqtiga jirta ay kamid ahayd waxa ogsoontii ninba Ingiriisa ayaa wuxuu tagay Ciraaq Baghdad buu tagay wuxuu Baghdad way ka weyn London way ka weynta walo fiirsay London bariga way ka weyneed Baghdad kutubta taalay librariyada cilmiga yaalay awoodeeda lama sawran karin Mongoliyaanka iyo Tataarkii oo cilmi lahayn baadiyaha ka yimid farda fulaha wax alla wixii kutuba badda wabiga ku daadiyeen balo fiirs wabiga ku baabiyeen eber bay ka dhigeen dadkii muslimiintii 1 milyan wax ku dhow culimada qaar koodna 1 milyan oo muslim ka badan bay yiraahdeen ayaa halkii dhagta dhiiga u dareen magaaladii waxay noqotay magaalo haddaad hal talaabo qaadaba mid koor yaalo yani saasoo fal xumaatay ninkaasi markaa waqtiga maamulayay muslimiinta awoodiisa way daciif bay difaaci waaye sheegan iyo khaliifku dambeeyay wahaye intay qabteen saga ay waxa loo yaqaan intay wax ku xireen ku duubeen roog iyo wax ku duubeen ay fardaha cagta marsiiyeen
فرضها يعني ساو جولابين فرضها والله فرصة دولين تنتالك فرضها ساو جولاب سيين أو محوها إيبر كدجان ما أنت سال لودري بغداد أي دعدي عاصمة المسلمين تويان هذه عاصمة دعوانا المسلمين تكلها الشيء أود بدن مله إلا عاصمة دعوانا معمولة ياي أيام محوها واحد الشيء عجيب كوفرس إلهي مركز تو امتحان جردو حاجة كلو فرج كبحيان إسلام ما ننتهس محوها أو بنتي بقر كاسود دنبي عثمانيين أنا عباسيين تا إسلام ما ننتهى واحد الشيء علمي يراهن نكي أساسي محوها دولة عثمانيين عجيب كوفرس ما إسلام ما ننتهى دولة عباسيين تدعي إلهي وحو عدونك كاني نكي أساسي عثمان ابن أردقل لورنشري أيا عدونك يمدي أو محوها ما ننتهاش يعني أنت أساسا سنة كدبنا دولة تركيا كبلابنتي كدبنا صوب بلارتي أيود دسي إلا إسلام كاي معمولسي intii ugu badneed iyada ugu badneed dawladda muslimiin maamusha ilaa inaga soo gaadhay iyada ugu badneed halkaas waxay wadaanba 1924kii ayaa yaani Yurub ay kaga takhalusan waxay duulaan ku wadaan duulaanka adag dawladda Uthmaaniyiinta riday dawladuna yaani cadceedo inay ka dhicin oo Afrika maamusha Aasiya maamusha waxa loo yaqaan badanka ama in badan oo Yurub kamida maamusha ayaa duulaanka reer galbeedku waxay ku wadaanba la sheegay daal wiido marun bu dhacay ay rideen bal ka waran qoys muslim oo yar oo dawladdu weynaahayn duulaanka lagu wada talo soo ridi kara siro food buu ridi kara ka dhiganta siro food ayuu ridi kara ka dhiganta walaa hadaba saa darteed qoysku maanta hadii dawladdii naga dhacday oo maanta ayna jirin dawlad weyn oo muslimiinta ka dhaxaysa dawlado gaar ah inuu kala sameeysan Allah amniga inoo ilaaliye qoysku ma tuxu matala khilaafada islaamku matala waa dawlad yar oo dhisan la kala dambeeyo oo muslimiintu ma kala dambeynta yaqaana xaga dambe waxaan ku arki doonaa in muxuu gaalada maanta nala mid noqdo ay leeyihiin ay nala mid noqdo hayaan sida noqdo hayaan ay yiraahdeen waxa loo yaqaan muxuu caalamkii si fiican bal maamulay gaaladu yiraahdeen iyaga laftooda iska hadlay si fiican bal maamulay yiraahdeen maamul fiican waa sameeyay yiraahdeen laakiin hal shirkad iyo hal warshad ayaan maamulku u diidnay yiraahdeen walo fiirsada gaaladu maamulku ay ku fiican yihiin oo waxa loo yaqaan dhulkooda way hagaajisteen oo way runta laga hadlado way fiican yihiin oo markaan maamulku iyo adduunyada noqoto way ku fiican yihiin laakiin waxa hal shirkad ayaan maamulku u diidnay waa qoyska yiraahdeen kiina uu burburay bal cajiib ka fiirs waxay yiraahdeen naagtu way siman yihiin waa muxuu loo ikhtiyaar baa la leeyahay waad garan kartaan dadka sheekay ma xaga dambe ku arki doonaa halkii yaani qoyska islaamku inaga wuxuu u dhigmaa waa dawlad yar weeyaan waxa ka kooban yahay nin ilaahay diray oo la yiri raaciba tahay aakhirana su'aal baa lagu weydiinayo og in ilaahay aakhiro caruurtiisa xaaskiisa weydiin doono xabadna loo weydiin doono ayuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay hooyo isdiraysa oo og aakhiro ilaahay inuu weydiin doono ninkeegii caruurteedii gurigeegii oo weydiin doono ayuu ka kooban yahay guriga islaamka wuxuu ka kooban yahay dastuur ilaahi ayuu ku dhisan yahay dastuur ilaahi ayuu ku dhisan yahay oo waxa loo yaqaano waxa la sameeyay magaca ilaahay baad gabadhi ku aqbash magaca ilaahay baa lagu siiyay magaca ilaahay baad ku xalaashatay magaca ilaahay baad ku maamulaysaa waa dastuur ilaahi ayaad matalasan haystaraysan aayad quraan ilaahay waxa loo yaqaano leeyahay guurka lagu dhiiri gelinayo iyo muxuu ahaa nabiga sallallahu alayhi dhiiri gelintiisii ayaad matalaysaa qof markaad xaafad leedahay haasmoodin inaad yaani kaliya aduun wax awshan wado aayad ilaahay baad matalaysaa sida gabadha xijaabka xiran ee asturani ay aayad dhulka socoto tahay ayaa guriga islaamku u yahay aayad quraana oo aad tabaqday aad matashay sidii ilaahay subhanahu wa ta'ala ku amrana aad sameysay weeyaan hadaba walaalayaal khilaafada yari haday iyo dawladda yar haday naga dhacdo waana dawladdu dambeysay wax si dawladdu u eeg yahay ugu dhisane waa adag hadaba bal hadaynu toosha ku yar iftiimino oo aynu si gaar ah u eegno bal duulaankaasi suu inoogu soo bilowday qeexitaanka hortadan istul taagnan duulaan maxaa la duulaan gaar inagu soo qaado oo qoys iyo dawlad ku soo qaado maxaa la hadii la isweydiiyo waxay culimadu gaar ahaan sheekh maxamed qutub wuxuu ku macneeyay duulaan waxa la yiraahdaa waa gaar ahaan duulaanka fikradda ku salaysan ilaa laba duulaan baa jireen duulaan waa in waddanka lagu soo duulo oo askari ahaan iyo hub ahaan lagu qabsado weeyaan kaasi sidii doonaha lagu xajiyo sidii doonaha lagu guumaysto intii doonaha in laga dilo mar un baynu guuleysayna ka wala yaqaana duulaanka wuu fuudiyaa askariga ee hubkii wuu fuudiyaa maxaa ka daran duulaan ka daran baa jira oo ka weyn baa jira waa duulaanka fikradda
iyo maskaxda la iskaga duulo oo qofku dareensiyo suu kuugu wado inuu ka fiican yahay barcaji koofis inuu ka fiican yahay ka wanaagsan yahay isagu ka wanaagsan yahay hadduu ku qanciyo duulaankaas ha u daran adoon baad noqonaysaa bimaana kalima adoon baad noqonaysaa marka duulaanka maskaxdu waa wasaayisha iyo dariiqooyinka aan askariga iyo askarinimada ku salaysnayn ee ay nagu soo qaadaan muxuu reer galbeedka iyo kuwa gaaladii sababtay nagu soo qaadeen waxa weeyaan inay masaxaan quruxda islaamkan haysano waa in loo quuri ilaahay walaalayaal bal waxaan haysanaa in loo quuri ilaahay firs islaam baan haysanaa kala dambeyn baan haysanaa waa in ku qurux badanahay haanu iska gaajoonne waa in kala dambeynaayo gurigeen iyo qoyskeena waa la kala dambeeyaa aabihii iyo odayga baa maamulaya laakiin iyaguna waa inoo quuri ilaahay waxay leeyihiin warseeda noqda سيدا نقول لي مسموه النبي لوط عليه السلام نبي لوط تدكيس وحيان كوي وهرية صوب بلاوي إن رجع يسكوسدان أي صوب بلاوين نبي لوط وحي كو إيديين بلو فرس ضد حمان تقصنا يا هنا ده إسكا قاشنا يا هاي نبي لوط وحي كو إيديين محد نور من الله وضد إسناديفية كو إيديين ضد إسناديفية تبغى واحد سكو إيديين يينا قف حمان تسكن ناديفيو أو سنة الديدو أو فحش جاي اللوات كديدو محاسك عباية ريب لوط تدكيسي لوط بكو إيديين إنهم أناس يتطهرون بينهم وضد النظيفية وضد حمانة الديدة وضد هيركاس لو جارسين إن لو حمانتي لو عايو محدو سميده لو عايو يا الجارسين نبى كشك يحوري مركز وضمنا قال هذا لتشوفه قبل ده النقطة سيد عن أبيض يهويد كلنا أهاته أبى عب بلو فيرس يعني قبل ده بكره هاته أبى عب بالين oo waxa loo yaqaan gabadh yani sheekha ka sheegay wuxuu yiri gabadha Soomaalidu ka tagay ayaa muxuuha gabadh kamid ah ayaa lagu caayay saasat fikrada lagu caayay walo firs oo waad sida abaayhooda ku dhalatay lagu caayay wiil Soomaaliyeed oo isku suulka dhiganaya ku walaal wallahi wata lagu caaye inaga isku muxuuha isku Soomaaliya inaga muxuuha ceebta maka asturay walo firs yani waxa noo ku qosol weeyaan yani jirku naga xanuuno laakiin wiilkaas wixii ka taaganta oo ay ka dhab weeyaan وحولي ولا المحوها وطن وعاية قبلنا وعن سيدا بهذا هو يذكر له وياه نقول له هاي وعن قالوا في السؤال هالكي مرس يعني هير كاف وشحون له قف مسلم ونصورين كرين أي معنا أيقو مريان مركاسي دين تاسين نقول له حيان أي سميين هذا بقى إلهي المركا ونقش كي يوحول القرآن كو مرهروا إلهي نقش كي نقالوا إنك دينين إلهي وحول كتجي مايان إنك قالوا إذا كنت دالان إذا لا تقالمان إلا دين تيتك عليان بروفيرس إلا دين تاتكلم نقطان أو تقارن نقطان ما ننتم بهاك هورانيا أنت كلام نقول ضيا هل مسلم دون كتشوجو تقال كون نقص عنيه